xildhibaanada gudoomiyaha gobolka aan doqo magaalada Muqdisho oo ah nin aad iyo aad howlkar u ah shaqo badanne soo dhow oo ku taageersanahay Cumar gudoomiyaha Cumar ku taageersanahay xildhibaanada labada aqal maamulka gobolka Banaadir waa salaamantiin halka horta waxa ka hadla saaxiibkay Mahad Salaad marka isku fikirana waa taageersanahay haddana waa ciyaariyahan ciyaar gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa inuu nabad inuu ciyaar doono mar dhow hadduu yaa aqbalo intaas kadib caawa runtii farxad ay noo tahay waana ka xumaa runtii waa waqti oo aad iyo aad loo daahay waxay ahayd in la idin fasaxo gurihiina aadaadiin laakiin farxadaan ku ciidnay guddoonka baarlamaanka anoo runtii ka tirsan baarlamaanka si gaar ah ugu mahad celinaa arrinta aan ugu mahad celinaan waxaa waaye matalaadii gobolka Banaadir waxay qaadeen tallaabo geesinimo leh gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu jeediyey khudbad taariikhi ah runtii oo aad iyo aad uga hadlay magaaladan culays ka jira dadkan jooga magaaladan culayska ay qabaan oo ka sheekeeyay taana waxay keentay dad badan oo xildhibaan ah inuu fikirkoodii bedelo aad iyo aad u mahadsan tahay khudbad taas la mid ah waxa ugu dambeeyay oo aan dhageysto runtii waxay aheeday aniga 10kii September 2012 maalin Isniina madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed markii laga raayay badanaa markii madaxweynaha Afrikaan laga raayo waxa laga yaabaa fikir kale madaxweynahaas wuxuu jeediyay khudbad taariikhi ah oo dadka Soomaalida runtii aad iyo aad uga yaabis markastana waxa loo baahan yahay madaxdii hore in la xasuusto oo dalkan mar walba hadleen waxa laga hadlaa dawladdan waxay qabatay waa run dawladdan waa dadaashay wax badan ay qabatay taariikh ay sameysay tiyaatarka ay furtay dhismo fara badan ay dayactirtay laakiin dalkan meesha kama imaan shaqo hore la soo qabtaa jirta madaxda qaranka mar walba in la xasuusto loo baahan yahay shaqada ay soo qabteen intaa kadib waxay caawa runtii siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi ama aan dhaho Soomaaliland halkan joogo waxay runtii hadal la siiyo waxaan iska dareemi karaa waqtigu inuu yar yahay baryahan dambana siyaasiyiin badan dhalinyaro dad badan oo caan ah waxay ka imaanayeen runtii Hargeysa iyo magaalooyinkaas mar walba arko arrinta aad iyo aad ku farxaa waxay dhiirigelinaysaa isku soo dhawaashaha dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala mustaqbalka inaan weekendiga meesha Nairobi ka aadi jirna inaan ka aadno Hargeysa iyo Burco iyo dadka isku furmaan hadii la yiraahdo aad iyo aad ugu dambeyntii aniga aad iyo aad faraxsanahay mar raba ballanqaadka guddoonku bixilaa inaan dhiibo laakiin shaki igama jiro in matalaadina la helay maqaamkina la heli doono waana isgarab taagana waan ka shaqeyn doonaa insha Allah tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.